السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maadaama lagu kacsan yahay arintii kowdii bishan dhacday aad dadka ugu kacsan yihiin weli dadka maankooda aysan ka gucin haddana maantay dadkii reer Somaliland baash dhanka loo rogay maadaama Soomaaliya ay ku dhisan tahay dadka anta badan maartay dhanka qabiil ahaan dadka loo beegsaday oo dadka maartay qabiil ahaan wax kasta faraga loogu shibay oo nin kasta ay u yimaadaan mase soo hor istaagaan ay anta badan ay ku taageeraan dhanka maartay qofka qabiilku yahay lagu taageero ayagana siyaasiyiinta Soomaaliyeed sida ay u hadleen si ka duwan ay u hadleen siyaasiyiintaas weliba intaan siyaasiyan arki jiray mas intaan siyaasi daawanayay ninka ugu doqonsan Faysal Ali Waraabe sanad ka hor mase maartay intii aan looga adkaan dagaalkii Kooja Cadde wuxuu aad ugu celcelin jiray maartay in Somaliland xuduudaheeda faraxay ka baxeen sheegada dagaal la qaadayo oo xoog wax ku soo ceshanayaan oo xoog la isticmaali doono ilaa Garowe lagu dagaalami doono ninka maartay aad u isticmaali jiray buu ah Faysal Ali Waraabagi wuxuu yiri shalay reer Laascaanood soo laabta maartay اعتراف baan nasiinayaa Somaliland Paris bay noqonaysaa ya ninkii 8 bilood ka hor ninkii intuu meel soo istaagay ku xinjabay Laascaanood xoog baa lagu soo celinayaa dadka la dagaalamayno waa dad maartay sheegada qabiil gooni ah oo ogaadeen la yiraahdo ayaan la dagaalamayna ya waa ninka intaan siyaasi dhageysto mase siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa ninka kaliya ugu waalan siyaasiga Faysal Ali Waraabe ninkii dhahay ilaa Garowe waan dagaalamayna ayuu intuu meel soo istaagay yiri wixii dagaalkii dhan intee maskaxdiisa ka baxday ayuu wuxuu yiri reer Laascaanood soo laabta اعتراف baan nasiinayaa ya Faysal Ali Waraabe hadalkii uu ku hadlay oo maartay sheegada caadifada yaraa waa kana armaskiin sana maanta oo kale haye waxaan abil u dirayaa dadka reer Laascaanood dabcan furan ku soo dhawaad walaal اعترافيا Soomaaliya Singapore bay noqonaysaa maqaawil baynu soo qaadanaynaa insha Allah taala wala inoo soo haajiriyaa wala nimadeeni iyo dharashadeeni soo celiya yaan leeyahay waalin haruuti soo celiya iskuuladii u furan khayraadka bilaabmaya Somaliland waa reer gooni ah waa qabiil gooni ah hadalkaas ana ma dhihina asaga ayaa afkiisa ka yiri hadalka intaan la gelin ka hor horta bariixaanay ilaa bishii kowdii wixii ka bilaawday Soomaaliya iyo Somaliland dadka maal siyaasiyiin aad baa loo dhawaaqay markii la dhawaaqay Somaliland waxay ku candacootay inay maartay badda ay heshiiska ay ku gashay inay ku bedelatay اعتراف in la siinayo horta اعتراafka la siinaya Somaliland maray dhul weyn ahayd maantay dhulka ugu weynaa wuu ka baxay wuxuu yiri Soomaali weyn ayaynu nahay
dhulka buura xigo dhanka maaragtay Ethiopia haggiisa ka xigana iyagana ilaa shalay iyo daraad qayladhaana ka soo bahaysay oo iyaga maaragtay hadda dhanka badda iyo maaragtay waxaas kuma jiraano waxay leeyihiin waana noo tashtay oo maaragtay weerar baan nagu qaaday oo barnaamijyaha hadda ku jira ayagana berito haddii calankii buluuga hadday ay meesha ku taagtaan meesha keliya ay loo soo cararayo iyagana ay usoo bixi doonaan waa Soomaaliya. maxaa soo haraya marka in yar oo maaragtay 30 kiiloomitir ayaa isku soo hari doonta ayagana waxay dhihi doonaan war maadaama dadkii daraad asla heshiinay oo maaragtay waxa asla meel dhiganay maadaama ballanta inooga baxeen waxaan gacanta ku hayna ma jirtee war Soomaaliya na aadiya ayaa iimaanayso Somaliland inay qabiil tahay oo reer tahay Faysal Ali Waraabe asiga afkiis ayaa ka sheegtay waa tana mar hore ma dhowey hadalka ma dhowey waa kana reer Garowana way waruntoodu mar haddii ku guuleysay inay Soomaaliya qaybiyaan oo ay ka dhigaan dowlad goboleeyaal qabaa'il ku fadhiya oo ay qaybiyeen haddana gaalkacyo dadkii walaalaha isdhalay ay gaalkacyo laba maamul baan u sameynay yiraahdeen inay u soo jeesaan Somaliland oo isna iyadana qaybiyana de waa waqtigaasi inaga siinay laga wax leenahay tanidiin suurtageli mayso Somaliland waa family siyaasadna nagama adkaanaysan iyo sharcinimo xoogna nagama adkaanaysan ana ma doonaa in Soomaali kan haddaad arkaysiin sida Faysal Ali Waraabe soo afkiisu ku sheegay meesha waxa iskugu tagay waa qabiilkii markii la kala qaado qabiilkii ugu badnaa maanta reer Sool Sanaag baa la dhahaa dhul bahanta la dhahaa maanta way ka arreen yaa soo haray in yar baa soo hartay in yar warsangeli liira wax yar ah antina iyagana maantay baangaday haystaano inay iskala jaraan bay rabaan oo maartay Soomaaliya ay soo raacaan yaa soo haray Isaaq oo asagana 30 kiiloomitir ku jira بريتو حقيقة واي عدد لابسانو هادي كدبا انا سجيري دونين مارتي سوماليا واكا قعوني مجري دونتو سانس لياهي وحي راعي دونان سوماليا يسور راعي دونان تاسي هالكاسي حنو تالو سوماليا انت لغا حالي انتا سانو احاتو وحن راعينا يا هادالكي وقود دنبيا قرونكي إيارها كدعيين مامول قولي لده galabtaani maxaa ka dhacay war antii dad la isku keenay oo qabiil laga badiyay shaati qabiil loo xiray oo jirar weyne ku jirto oo id kasto maanta la liidi jiray iyo id kasto maanta kor isku qaadi jirtay bas id kasto maanta laan dheer isku tilmaami jirtay meel isku timid antii meel isku keenay waa Soomaali maanta waxa kaliya kala celin kara waa xabad والله حبط باك علين كرتو أنت مليون أنت مالس كو كاني أي وزارة القعان وحي كانت وحي تري ماشي حب لما قرين كرم لما شده ما أنت محاي مرتا ورداوع ما أنت محو مري وردت كان حدي على الحكمين كريم أو عن الشرعي حاجو عن الله سمين كريم أو ددك ماشي لسكو كاني أيهين دد أي سن مارتي dhammaantooda shaati qabiil u xiran inta meel isku keenay baa leeyahay haye kubad inta loo dhibay hal ciyaaro maanta waxa meesha ka dhacay war yaa qaadanaya wallahi id qaadan karta ma jirto laakiin waxa la yaab leh war waxa meesha ka dhacay waa la og yahay wax yar maaha ولاسكا ماشي كدعي مانت دولة قادن كرين شعبا قادن كرين عسكرا قادن كرين وردتك أنت على حديبو عن الحكم كرين وردتك أنا حدي عن الحكمين كرين وأنا وحبال لغا قابن كرين وردتك إلى لها أو لها استاغل هاني اللي يرهبك بنانك جاية وردتك إد قابن يسأو وحكا قابن كرتا يا واي وروح أركاي دد ووين عمر 6 اسكو فيري
wallaahi bilaahi watallahi waa wax war dadka maanta baddooda lala wareegayo dhulkooda lala wareegayo oo maaragtay ayaga duulaanka lagu yahay ayaga maaha wallaahi wax maanta oo kale waxaa la rabay soomaalida inay tahay dadka isku diirnaho isku duuban ayaa la rabay inay adduunka tusaano ninkaana maanta badda saxiixday inay tusaan baa la rabay oo maaragtay isku xambaliyeeyeenoo dadkan ninba ninka oo isaga uu liidi jiray maanta kor u qaado waa waxa keliya maanta dadkaa iskaga dhicin karay mase duulaankaa la iskaga dhicin karay tii lama samayn ilaahay baa idinku dhaariyey wax maanta meeshaasi ka dhacay bal ixsaanaka war dadkan dad la qaban kara maaha waxa keliya dadkaa lagu qaban karaa laba qof hadday isku jeesto korkood haddii hal tareesa laga rido gebigood dhulkay fadhiisan lahaayeen waxaan dhan ma dhici lahayn war muuqaalku waa idinku dheeriyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh